khilaafaadkii markuu batay maalinun bay soo istaageen inuu dee kuma afkaranaya maxaa qaldan deetana waxa dhacday ninkii wuxuu ku niyow waxay weydiisaa markaa dalkii goormaadka ugu dambeysay wadankii goormaad dee markii ugu dambeysay goormay adigu wuxuu ku yidhaahdaa maba tegin beryaha maba arag bilood ka hor adigu hadalladiisu way isburiyaan inantu dee dadkii oo dhanna waa uga soo go-ay asxaabna male mushkiladda u weynee inta badan dadka jacaylada ku guuldaraysta ama qalbi jabka la kulmana waxaa ka mid ah qofkii baad uga soo go-aysaa dadkii oo dhan oo xataa asxaab ma yeelanaysa saad isu leedahay isaguun ku koobno waa halkan sahreyle seesta ay ka tiraahdo eeg marka asxaabta sababta balwada asxaabtan laga go'o ma ogidniya dee maxaa looga go'aya sababta looga go'aya dee wax mar waxa jirta maxaa qofkan iyo jacaylkayga asxaabteeda isku xidha asxaabta calashan ma kuwa nin oo niman kala dee miya ila sheekaysato ama niman ha noqdaan ama inama habla ha noqdaane keli socod baad noqonaysaa qofkan umaad raadinaysaa xanuunka idalaya hay waa halkan heesta ay saareyle iska leedahay macnaha kubarta kuguma qasaarin waxaan se ka qoomamooday sidaan kugu keli ahaaday allah waay macnaha se keligeed ugu koobnay waay inantii asxaab ma laha dadkaa kale ma laha ehel kale oo jooga dee wadankii ma laha صح لكن isaga de ku koobneedo isla wallahi isaga islahay bashar bal isku haleeyahay dadada iyo ma garanaysaa cadaawaha ka wehesho deetana waxa dhacday wiilkii markay iskhilaafeen baa wuxuu ku niyow hal shay ka jirta mudadan bakaa qarinayay ana waxaan ahay nin reer leh intaaba waa kaa soo qarinayay intuu la sheekaysanayay reerka uu lahaa ka qarinay miya maalintan uu la sheekaysanayay intuu sheegay هاي انتو يدا لا sheekaysanay reerka uu lahaa ma ogaan reerle bal waday yaan dumarnimada iyo xamaasada ku qaadinay reer baan lahaay waan ka qarinay reer baan leeyahay wuu ku waan ka qarinay haddaba hadduu xataa intaan ku ekaan lahay wuxuu sii raaciyay mataqaan diyaarna uma yihiin inaan gabadhayda khiyaamo diyaarna uma yihiin inaan gabadh kala guursado diyaaruma yihiin inaan haasaabo kala sii warqiisiyo markaad imika ila haasaawaysi xaggaad mid khiyaamayn gabadhaada no waxaan balwad ninkan nigu cadhaysiimo meeshan usoo fadhiista inantii murar dilaac iyo niyad jab bay qaaday intee la sheegaysanay muddo intee leeg marka adigu waa dhowr sano dadna imika leeyahay diyaaruma inaan xaaskayga khay واي وضوض سوري dadku ibni aadamku kasi tuug bua ibni aadamku way kala duwan yihiine inantii markuu intii ku yidhi inantii marar dilaac iyo jab iyo afkalagaad bay ku noqotay ma ninkii sidaan ogaa aan ugu halgamayay ninkii sidaan ogaa aan macnaha kalsoonida u siiyey ma ninka sidaan ogaa waxyada jacaylka iyo hadiyadaha kala jaadjaadka ugu beeray mushkiladdu waxa weeyaan bay ku leedahay waxa xasuus igu leh meel kastaan ka laabo way dad isku shaqo dhowaa isku waxbarasho dhowaa nolol wada qaatay inay waxbarasho wada dhigtaan mushkilad weeyaan xasuusuhu waa cadaab inantii markaa qisada waxay leedahay noloshayda waa intan dad waan la haasaaway laakiin qof ibni aadam wada inta saa isugu wada aaminay halkaasdinii naagtayda ma qiyaam nuux muxuu ahaa qisadaasi halkaasay ku eegtay sooma laakiin ninkaasi tuug buu ahaa sida dadka qalbiyada looga xado takhasus ku ah miyay horta tobankiis intiisan ula sheekaysanayay naagti may joogin way joogtay miyaanu khiyaamo ku ahayn ka horreysay weliba gabadhan hadduu markaa le waxaas madaxa hada garan markaa dadku way kala duwan yihiin laakiin
niyo rag iyo dumarba khiyaamada ma fiicna way kulliba kugu soo laabanaysaa khasab nafsi baa dee jira dunida haddaad si kasta nafsi baa carrada jira ciddii ay culloobaan ka cadgoosanayee allah ku yidhi ninkii cabdifanaan hore cabdihana ka cadgoosanayee armaad maxay sidaa noqotaa buu yidhi marka kulliba noloshu waa iska mushkilad miiran